بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ديما السلامي سيولنتيهين أرضيدا سمسك تكنولوجي وبوجين أفراد ومادتين أفراد MS Access وأنيقو ولكن مستر سيدك وما هي هذا Access سيدا هوري كو شغبو Access وحاو يعني إن إسكا وحير دو يهي Excel ka oo barnaamij xisaabeedkii ahay waxayna iska leeyihiin jadwalka iyo foomka iyo waxaas iska leeyihiin sidaa darteed marka Excel ka waxa waaye waa database database wax kale ma la dhaho yani waa waxba lagu shubtaa waxba lagu kaydsadaa xogta customer-ka hadii aad tahay company shaqaalahaaga xogtooda ku store gareysaa marka hadii aad tahay jaamacad yani waxa ku shubeysaa xogta ardayda hadii dawladda aad tahay muwaadiniinta xogtooda ku shubeysaa marka waxaan sameyneynaa marka Excel ka guud ahaan wuxuu ka kooban yahay inta waxa ugu muhiimsan waxyaabo badan oo leeyahay laakiin waxa useful ka ma la isticmaalo waa afartan waa table iyo query iyo form iyo report marka table maxaa la marka table ka waxa lagu shubaa database ki macnaha xogta maarkino xogta ardayga oo qofka for example waa diiwaan geliyaysa wayna macluumaadkiisa magaciisa daada u dhashay passport numberkiisa telephone numberkiisa waxaasna xogtaas marka ku store gareysan query-ga marka sidoo kaleeto waxa waaye jadwalku aad ku shubeysaa foomkaasina waa foomka caadiga ah oo la buuxinayay marka report ya jira asagana oo daatadii marka oo qofka ka buuxisay inaad dib u soo daabacday markii aad rabtid printing waa camal marka Excel ka marka waxa uu ka sheekeeyaa dhamaan waxa waaye xogta qofka sidee baa u kaydsanaysaa adoo isticmaalayo table query form iyo sidee ula soo baxaysaa adoo isticmaalayo report إحنا سلفنا ملايين تاسك مريكا بايبراتيك لو حاجة سارينا مركب فوكس سارينا سيا وفانت بوك هذيك آخرسو خرالك هذيك آخرسو ستيب واحد كستو هو غرين ستيب باي ستيب هو غرين لكن بوك وحلقة بينا فهم ويسيد بقى عاجزتيد dadka akademiyada ah buugaas ka akhristaano xafalo gareeyaan marka dadka oo nan akademiyada ah oo cilmiga la kumiti ku sinay bardaynaan aniga soo falo gareeyaan marka kuwaad marka dartan waxa sameeyaan ashirkeena kuwaad marka waxa ka dhigaynaa ashirkeena kuwaad table ka dhigaynaa ashirkeena labaadna query ka dhigaynaa ashirka saddexaadna form ka dhigaynaa kana report ka dhigaynaa waa aad u fudud yihiin waa laba daqiiqo way ina rajayna patient aano waa wax yar oo fudud haddana isticmaalkiisa kala iskaaraga marka aad baa mahadsantiin marka hadda waxaan soo kacsaynaa sida normal ah caadiga ahayd wayna soo kacsanaa Access waa maxay Microsoft Access meeshan searchiga igu qor Access okay yara waa lusiya maanta dhimal intana waa ka heli kartaa okay yar laptopkayga culus maanta okay aan sii sharax marka sidaan wada ogsoonahay yani waxaan sameynaa hal example aan sameynaynaa halkaas example waxaa rabnaa inaan ku dabaqno dhammaan يعني وحي أو باهن تاي for example حوالة لا سمي كرام
waxaa laga samayn karaa registration ardayga, waxaa laga samayn karaa employee markin shaqaalaha laga samayn karaa, inta waa ka samayn kartaa. marka aniga hadda student ya ka samayna, adiga marka xawaalad barnaamijkeeda kale ka samay. marka conceptiga kaleeta ana ku sharaxayo waxaa ismaaj garayaan kan saana ka samayn kartaa, kan saana ka samayn kartaa aan quraadina samay. laakiin ana hal way ku tusiyaa oo student form ku tusiyaa, registration student ku tusiyaa si xogta ardayga diiwaangelinta loo kaydiyo. okay access waka access iyo qor. okay waxaan ku soo baxaya marka page-kana ku soo baxayo. page-ka marka ku soo baxo waa ka dooraysaa blank desktop database. magac u bixi marka waa inaa magac u baxsataa, for example student registration, student registration. waa maxay magac u bixi? waa database-ka magaciisa waayo. meesha rabtidna aad dhiga kartaa, halkaan aad furaysaa intee dhiganaysaa. for example waxaan dhiganaa documenti example documenti yaa dhiganaa. okay magaciisana waxaa la student registration, waa database-ka magaciisa waayo. okay waa ka bahadkiisa waa kaasa meesha soo ku register then create waxyaalo sug. okay page-kana ku imaanayo. page-ka markaan ku imaano horta waxaan isticmaali doonaa dhammaantan waxa waaye create-kaas badan isticmaalina, intaa kaleetana waa isticmaali kartaa laakiin kaasaan focus ka saarayna. haddaba table-kan waa kana, waxaan ka rabaa table-ka marka inaa aniga aan buuxiyo oo dhiso maarkinoo table-kii registration-ka ardayga. marka halkaas drop down-ka markaa furtid waxyaabo kala duwan oo ah ku soo baxaayo. afwan computerka isticmaalkiisa wax badan aan ku isticmaalaa, marka traffic jam aa dhacayo. halkaa marka waxaa ka create garaynaynaa formka sida uu noo naqanayo aan create garaynaynaa marka koowaad. marka labaadna markinoo table-kii markaa create garayna oo buuxina. okay u fiirsa marka drop down-ka fur. markaa furtid marka intaana ku jirto xog. marka dhidante ma rabtaa, currency ma rabtaa, lacag ma gelis, number ma rabtaa, short text ma rabtaa. okay aniga attendance attachment marka aniga markaad short text ka dooraa, short text kaas waxaan qoraa student name, okay waxaa dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa okay student name. meesha waxaan qoraysaa roll number, roll number-ka ardayga. roll number-ka waa inuu ahaadaa number. student name, roll number. jadwalka marka aad dhisanayo ma garatay. roll number okay glass abdaha adane glass
okay year fees paid on time. Okay, I think it's enough. Phone system का आएगा और date. Okay, marka for example waa degsaday hadeertan waxaan degsaday yani inta xog aan u baahnay marka okay student name muxuu noqon karaa marka Saale Cali phone numberkiisa waxaa waaye 90 galaaskiisa waa B galaaskiisa waa B yeeligiisa waa second feeska waa $20 datekana optionkana kala kusiisa halka ku dhufo calendarka today iska dheh dateka wuxuu yahay kusoo saaray okay waxaa kada qofka labaad Axmed oo 99 numberkiisa yahay oo galaaskiisa C yahay wax aragta ku qoran kartaa oo first year ah feeskiisana 25 currencygaas meesha dollar ah dhigi kartaa direct today okay qofka saddexaad numberkaas automatic iska sameysmaa shaqo ma kulid Aisha tusaale numberkeeda 100 classkeeda A oo final year lacagteedana waa 30 meesha student name ka waxaa ku qoraysaa soo diray roll numberka waxaa ku diraysaa loo soo diray meeshan classka ana waxaa ku qoraysaa damiin meeshan waxaa ku qoraysaa lacagta waxay tahay meeshan waxaa ku qoraysaa waqtiga la soo diray in time-ka meeshan numberka ku qoraysaa okay jadwal noocaas sameyso marka sameysid saan camal u samey marka dadku diiwaan geli marka waa adaa ka rabaa marka inaad barnaamijka sameysid meesha aniga arday processka sameey adiga process xawaalada sameysa waxaa dhay soo diray loo soo diray lacagta qadarka la soo diray waqtiga la soo diray
numberka iyo the main intaba intaas inaad samaysid adna kuuga okay waaba samaysa anna waa sameeyey dan waa inaan save garaynaa meesha closeka ku qoran tahay close tableka kila ku siiyey yes aa leedahay meesha no haddaa dhahdid fashil waay yes dhe halka waxyar sug marka tableka waa inaan save garaynaa mogtahay oo magacaan ku qoranaa tableka hoose iska fuudiyaba inta clean waayo kuwa kale hadana saas u fuudiya mid kasta uu fuudiya adaa laga rabo markayna example kale kala bedeshid meesha aniga student ka dhigay wax kala u bedela adiga waxa ku salaysaa u bedelata baahidaada ama shaqadaada waxa ay tahay u bedelo ma garata marka hadii aan la soo xiriirtidne yani waxa way waa ka shaafiyena example badan oo ku sheena exercise jiro doon wax badan la isku dara markaas la socona qaybta subscribe-ka comment-iga update-ka yani asla socono wax badan course-kan markuu guud ahaan markuu dhamaado yani wax badan aad jiri doono okay table ke waa student okay ina marka si halka maxay soo fule waxay soo fule student oo table ah markii aan kali ku siiyo waka hadhooti marka diiwaangelinta meesha ay kasii wadaaleen okay qofka afraad okay Sumaya oo roll numberkeeda 99 yahay classkeeda D yahay okay oo final year tahay oo fiigeeda 35 taariikhda today خلاص تاسع كسيوده قفك لعم next day تتكسر وشيدرة diiwaangeli registration waa kasasa kuhaystaan control s la save garayso marka intaa waxaan u bixinaa markuu ku fahnay sida loo sameeyo jadwal sida loo abuuro table sida loo abuuro student table halka student table ayaa ii samaysan okay aad baa u mahadsan tahay la socoshadaada insha Allah si fiican u dhageyso qaybaha xiga aad baa u mahadsan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته